xaqiiqdii qof kastoo inaga mid ah waxaan marqaati ka ahay in dhibkaas maalintaas dhacay uu taabtay aniga shakhsi ahaan asxaab badan ayaan ku waayay maalintaa dadka si aad ayay taabteen idinkana waxaan aaminsanahay in dad badan oo halkaa ku naf waayay ay idin taabteen xanuunkaas ay sameeyeen argagixisada su'aal baan isweydiiyay xaqiiqdii culimadii ugu wanaagsaneed waa haysanaa dalka qof kastoo Soomaali ah gabar iyo wiil hooyo iyo aab diinteena waan qalbigeena waa ku xoogan tahay diinteena waa aaminsanahay aad bay u yar yihiin inta aan salaada dukan oo shay ugu horeeyo islaamka ah dadka Soomaaliyeed waa muslim boqolkiiba boqol tukada haddana waxaan la yaabanahay in qulubteennii aysan weli gaarin oo aysan taaban dhibka kuwa nabadiidka ah ee argagixisada oo isticmaalaya isla diintii aan aaminsanayn oo aan isticmaalaynay 24 hours marka su'aashu waxay tahay sidee loo gaarsiiyaa qulubta dadka Soomaaliyeed inay xaqa oo Allah tuso haddaan waxay tusaale u soo qaato maalinta shilka dhacay ee dad fara badan ay ku dhinteen ninka qaraxa waday waa qof muslim ah oo Soomaali ayuu ahaa soo sheeganayay وليس وحنا نور أو إلا هذا النور سان إنسان هاي كي أسوف ذديي كي أسوف رسميي يكيسو اللي فيبا ولي وأنه الإنسان إنسان هاي ولينا وين نقول حجران ولينا كم تنقل قانونين هو يريك الصوماليات وكو عرويين عرورتي الصوماليات وكو أبويين مالين تاس يا مال مكالة أو لمدة ترى ده بهيرات أو كدعي dalka oo dhan gaar ahaan magaalada Muqdisho halkan waxaan rabaa inaan culimada Soomaaliyeed fariin uga diro waa runtood diinta waa aabihii na soo gaarsiiyay culimadeena waa shuyuuqdeena Allah nagu anfaco ducadii weyneed oo soo jeediyay oo qalbigayga taabatay in badan oo idin kamid ah qalbigiina taabatay oo shiical dheer soo jeediyay horta Allah inagu anfaco culimada doorkooda ugu weyn waa run waxa loo baahan yahay inta badan maalmaha jimcada inta badan maalmaha muxaadarooyinka la qabo inay dadka waaniyaan inay dhalinyarada waaniyaan inay hooyooyinka waaniyaan ay tusaan macnaha diinta iyo diinta waxa ay farayso iyo waxa ay ka tusayso dhibka ay leedahay argagixisada oo ay ku hayaan shacabka waxa kale oo uu sheekha hadaaya taabtay waa run diintu waa diinteena waa jecelnahay haddana madaaristeena meelaha ay ku yaalaan waa wadooyinka dhexdeeda ay ku yaalaan iyadana inaan dib ugu noqono sababtoo ah cunugaas yaraanka markuu quraanka baranayo hadduu arko meesha uu ku baranayo inaysan munaasab ahayn diinta qalbigiisa kuma xoogaysanayso taas waa muhiim waay tan labaad oo aan rabo inaan halkan ka soo jeediyo waxa waaye culimadu ma dhahay way ka gaabiyeen laakiin xoogooda ha isugu geeyaan sida ay u tilmaami lahaayeen argagixisada oo ay xaq uga sheegi lahaayeen oo waxay aaminsan yihiin uga sheegi lahaayeen ha adkeeyaan hana xoojiyaan taas ayaan culimada ka codsanayaa dhinaca dawladda haddaan u soo jeesto waa run wax kasta horta waxa ka horeeyo in aan aaminsanahay dastuurkeena sharciga islaamiga ku dhisan inaan aaminsanahay in waxa na hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay diintana xiriirka lagu hayo shacab gudihiisa waa wadaadada oo ah xariga isku xira annaga iyo bulshada iyadana inaan xoojino waa muhiim waay waxa kaloo doorka dawladda ah in ay kor sare u qaado nidaamaynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada Audio Jungle.